barakaatu salaan kadib aniga iyo gudoomiyaha waxaan goobjoog ka ahayn doorashadii maanta ay qabsadeen guddiga doorashada isku dhafka ee labada aqal doorasho waxay ahayd oo si cadaalad ah oo xaqa ku dhacday sida aad u jeedaana waxaa guuleystay gudoomiyaha waxaa noqday senator cabdiqani gudoomiye ku-xigeenkana waxaa noqday xildhibaan maxamed keerow labadii aqalna way ka kala yimaadeen ilaah waa nagu aadiyey gudoomiyaha waa aqalka sare ka socday gudoomiye ku-xigeenkana golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka guuleystana doorashada waa ujeedeenoo dhowr wareegay gashay intaas waxaan ugu dulqaadanaynay inay si cadaalad ku kala baxaan marka waxaa noo taalla howl aad u xooggan maalmaha inay soo aadaan guddiga u taallo waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahayd diyaarsadaan waaba u diyaarsiiyeen xogayaasha diyaariyey dhammaan xildhibaanadii senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo la wada shaqeeyo habeeney maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan u dooranno taasaa shaqadeena koowaad ay tahay waxaan fariin idinkaga wadaa gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye sheekh aadan madoobe wuxuu yiri doorashada markay dhammaato dhammaan guddiga iyo guddoonkiisaba waxaan rabaa inay ii yimaadaan hotel naag hotelka uu degan yahay si shaqada uu dardaaranka meesha ugu bilowdo gudoomiyaha aqalka sarena sidoo kale isagana waa arki doontiin laakiin hadda fariintaasaa idin wadaa inaan is wada raacno oo shaqadeennaba aan bilowno annaga iyo xogayaasha kulli shaqadaan qabanno gudoomiyaha cali shacbaan waa diyaar isagana waan raaca taas fariinay ahayd marka waxaan idinka rabaa inaad shaqadii aad shalay nilii doortay maantana aad guddoon u doorateen inaad si dhab ah uga soo baxdaan annagana garabaan idinku siinaynaa si aan u helno